golaha shacbiga wuxuu aad had iyo jeer si dhow oo xiiso leh ula socdaa howlgallada golayaasha sharci dejinta dowladda goboleedyada gaar ahaan waxaa xusuus gaar ah nagu reebtay habkii daahfurnaa nidaamsanaa xorta ahaa cadaaladda ku dhisnaa oo golihiina uu u maamulay xannaankii doorashooyinkii madaxweynaha Puntland iyo sidii wacnayd aad u xalliseen toosinta xaaladii dhaweyd ee ka dhalatay korjoogteynta aad ku samayseen xukuumadda Puntland waxay taas tusaale u tahay bisayl siyaasadeed ay Puntland gaartay iyo dhaqan dimuqraadiyadeed falowgalay arrimaha oo qof ahaan golahan aan ugu bogay oo qofna aan inkiri karin waa go'aanada aad gaartaan iyo qaraarada aad soo saartaan waa kuwa dooc ah oo dareen ka fog oo muxaafad iyo mucaaradba go'aankaasi ay garwaaqsadaan taas waan idinkuga hambalyeynaya ma jiro waxaan ahayn ammaan iyo bogaadin aan ahayn oo aan ku sifayn karo dadaalkiinnan waana dhaqan dimuqraadiyadeed iyo oo mudan tahay in lagu daydo sharafta iyo haybadda oo dhaqankaasi soo jiiday ma aha mid hay-adaha iyo dadka reer Puntland keliya ay leeyihiin ee waa mid Soomaaliya oo dhan ay wadaagto waa dhaqan markhaati ka ah in Soomaaliya ay ku guulaysan karto maaraynta arrimaheeda waxaan maanta goobjoog u nahay waa Soomaaliya oo markii ay ugu horeysay taariikhdeeda yeelatay baarlamaan laba aqal ah baarlamaanka laba aqalada hindisaheeda badanaa wuxuu ka soo fulay Puntland oo ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Farool oo halka ka tegay himilada howlgelinteedana rag ay Puntland ka mid yihiin baa ayaa xubno ka ahaa oo maantana ah madaxweynaha dowladda Puntland ma aha deegaanada Puntland iyo dadka ka soo jeeda ma aha dad caadi ah waa dad taariikhda Soomaaliyeed ku leh saameyn xoog leh oo u horay kuna deeqay Soomaaliya madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal oo midkoodna maanta meesha uu nala fadhiyo dimuqraadiyadda aad muujiseen waa mid aad loogu dayan karo waayo waa meesha keliya hadda aan u jeedo madaxweynayaal isku beddelay oo si dimuqraadi ah loo doortay si dimuqraadi ah u kala degay si dimuqraadi ah xilka u kala wareejiyay maantana wada shaqeynaya Puntland wada jooga taasina waa arrin oo aad loo amaanay maanta wuxuu ku soo beegmay waa dowlad goboleedyo ay Soomaaliya yeelatay dhab ahaan una howlgaleen inta yar u dhimanna dhammaystirkooda u caddahay tabta loogu dhammaystiri doonana ay noo caddahay waxyaaba yaraa ka dhiman dhammaystirida dowlad goboleedyada waayo dastuurkeena wuxuu dhigayaa in heerarka dowladaha oo federaalkeenu ka dhisay inuu yahay 3 xirmo waa dowladda federaalka waa dowlad goboleedda iyo dowladaha deegaanka dowladaha hoose iyo xuduudahooda dhammaystiro iyo dastuuradooda iyo dastuurka federaalka oo dhammaystirmaan intaas ayaa noo dhiman taan haddii la yidhaahdo waa u wada duubanayna wuxuu maanta imaatankeena ku soo beegmay iyadoo shacbiga Soomaaliyeed uu weli la tiiraansan yahay dhacdadii dhiilada lahayd ee 14 Oktoobar oo ay dad badan ku dhinteen in badanna ku dhaawacbeen Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inta dhimatayna naxariistii janno alla siiyo inta laga dhintayna Ilaahay sabar ka siiyo inta dhaawacana Ilaahay shifa dhaqsi ah siiyo mahad gaar ah ayaan halkan rabaa inaan ka jeediyo dhammaan dowladihii noo soo gurbaday oo deeqyaha bukaankeena qaaday ama dawooyin soo dhiibay si gaar ah aan ugu celiyo maanta goobtan aan joogo dowladda goboleedda Puntland ayadana qaybta ay ka qaadatay waa lama ilaabaan si marata gaar ah baarlamaan ahaan waan u soo dhaweynay deeqda aad soo dhiibteen waa ku mahadsantihiin walaalkiinaad ka soo qaadeen walaalkiinaad u qaadeen لا شكر على الواجب لما نذكر لكن آدي بعض المحسنين رتايل حدي عن سيجارة عن سيكون عن أصول شيء بقولها الشعب iyo golaha sare ee baarlamaanka federaalka waxa ay ku jiraan kalfadhigii labaad
oo sanadka kan baarlamaanka tobnaad waxaa ilaa hadda noo suurtagelay saa ka warqabtaan dhismaha yani qaybta hore waxay ku dhammaatay oo kalfadhiga koowaad wuxuu ku dhammaaday dhismaha hay-adaha dowladda qaranka oo ay ka mid tahay madaxweyne iyo guddoomiyeyaasha baarlamaanka iyo guddiyadii oo la dhisayay iyo xukuumaddii federaalka ansixinteeda iyo barnaamijkeeda ay howlahaas ayuu ku dhammaaday kalfadhiga koowaad kan labaadna haddeer unbaa howshiisa hore u badan tahay oo shuruucdii xagga shuruucda sharci dejinta loo jeesan doonaa iyo dejinta siyaasadda haddii aan u galno dhinaca xilalkeenna ah xilalka ugu waaweyn xilalku waa badan yihiin laakiin saddexda xil ugu weyn waa sharci dejin waa korjoogtaynta xukuumadda iyo haddii aan lagu rooyahay matalaadda shacbiga haddii mid walba aan qaar ka soo qaado kuwa sharci dejinta waa socotaa taa waxay u baahan tahay tayayn xagga sharci dejinta inaan u jeesanno iyo karti dhisidda xildhibaanada laftirkooda inaan u jeesanno waa lagama maarmaan haddii aan u qaadano dhinaca kale oo ah korjoogtaynta waa mid iyadana socota mar walba joogtaa si joogtaa u dareerta oo aan istaag lahayn oo 15 guddi baa u samaysan oo maantana idinla fadhiya hadda guddoomiyaasheeda goobta idinla fadhiya guddi walba waxa uu ku beegan yahay hadba wasaaradaha uu markaa xil ahaan ugu beegan ayuu kormeer joogta ah ku sameeyaa iyadoo laga hubinayo barnaamijkii lagu ansixiyay xukuumadda ay daba joogaan dhawaana waxay soo saari doonaan haddii aan la yiraahdo dhammaan barnaamijyada ay ku shaqaynayaan ilaa iyo 2020 howlaha ay qaban doonaan ama waxyaabaha ay beegsan doonaan qorshahooda uu yahay inay soo saaraan baan jecel haddii dhinaca kale oo saddexaad waa matalaadda shacbiga arrimo badan ayaa meeshaasi nooga bannaan arrimahaas oo ay ka mid tahay waxaa aad iyo aad gaabis u ah xagga matalaadda shacbiga gaabis u ah axsaabta siyaasiga oo weli aan dalka ka hirgelin sharcigii waa la gudbiyey hase yeeshee waxaa dhiman fulintii iyo hirgelintii axsaabta siyaasiga taasoo mardhow aan diyaar u nahay inaan martaa samayno iyo iyadoo guddigii oo arrin madaxa bannaana waan u yeedhnay ilaa 2 maalmood oo kale la dhegaystay hadda waxaa u dhiman gunaanadkii inuu sameeyo taasoo ay ku soo bixi doontaa qorshaha 2 arrimood isgarab socda hirgelinta axsaabta siyaasiga iyo barnaamijka ama lagu hirgelinayo ama ay ku suurtageli karayso inay dhacdo doorasho qofkiiba hal qof oo loo siman yahay 2020 arrimahaasi waa arrimo oo qabiya loo diyaar garoobayo laakiin waa lagama maarmaan arrintaas ugu muhiimsan oo aad iyo aad loo baahan yahay waxay tahay xagga dib u eegista dastuurka maxaanse u baahannahay maxaase la ballan qaadi karaa maanta meeshaan waxaan u baahannahay in aragti midaysan aan ka yeelano dhisidda mustaqbalka federaaleynta dalka iyo doorka ay geedi socodkani ku kala leeyihiin dowladaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka